$5 laakiin jeedada baahan. Mid ka mid ah muuqaalada ugu xanuunka badnaa ayay warbaahintu soo bandhigtay shalay ama maanta, waana mid ka mid ah dhacdooyinka xanuunka badan ee la diiwaan gelin doono toddobaadyada soo aadan. Hooyadan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Baydhabo ayaa xilligan waxay wajahaysaa duruufo kala duwan, waxaana iskugu darsamay bahdil iyo sidoo kale inay la shaqayso ragga shiidka iyo sidoo kale caqabadaha kale ee ka jira gobollada dalka ayay tani ka mid tahay, waana mid ka mid ah dhacdooyinka xanuunka leh ee la diiwaan gelin doono sanadaha soo aadan. Muuqaalka hooyadan ayaa wuxuu qabsaday dhammaan baraha bulshada, waxaana ka muuqda nin oday ah oo hooyada dhinac u tuuraya, kuna amraya inay shaqaysato ama meesha iskaga tagto. Ma aha shaqo looga bartay dumarka Soomaaliyeed shaqadan ay hooyadan hayso, laakiin duruufta iyo danta ayaa ku kalliftay sida ay ku sheegtay wareysi ay bixisay. Telefishin ku yaalla magaalada Baydhabo ayaa muuqaalkan baahiyay, laakiin sidii dab kayn galay oo kale ayuu muuqaalkan ugu faafay dhammaan baraha bulshada, waxaana tani ay la oran karaa waa mid ka mid ah dhacdooyinka xanuunka leh ee la diiwaan geliyay sanadaha soo socda. Ninka hooyadan kala tuuraya ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa ninka iska leh dhismaha guriga uu ku socdo, taasi oo tani caddayn u ah ficilka foosha xun ee uu ku dhaqaaqay ninkaasi. Muuqaalka markii uu baahay kadib, ciidanka booliiska magaalada Baydhabo ayaa la sheegay inay xabsiga dhigeen odaygaasi Soomaaliyeed ee hooyada sida xun ula dhaqmay. Booliiska ayaa qaybta CID-da waxay su'aalo ku weydiinayaan ninka odayga, iyaga oo sheegaya in ay u baahan yihiin sababta ku kalliftay inuu shaqaalaha sidaas ula dhaqmo. In hooyo Soomaaliyeed ay la tartanto ragga oo ay dhismayaasha kala shaqayso, waxay ku sheegtay in tani ay u geysay duruufo dhaqaale oo reerkooda ku gadaaman iyo in carruur yaryar ay ka dambeeyaan oo waxay cunto iyo waxay cabto toona aysan haysan ciyaalkaasi. Sidoo kale bulshada Soomaaliyeed oo hooyadan u kacay ayaa waxay sheegeen inay u baahan yihiin inay caawiyaan cid walba oo hooyadan xiriirkeeda haysana ay u soo bandhigaan. Sidaas la mid ah, wararku waxay tilmaamayaan in xataa la joojiyay dhismaha uu ka socday magaalada Baydhabo ee ku aadanaa falku meesha uu ka dhacay, iyada oo goordhow wareysi ay bixisay hooyadan Soomaaliyeed ay ku sheegtay in ay ku faraxsan tahay in bulshada Soomaaliyeed ay u kacaan oo ay dhibka la qaybsadaan. Hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa Soomaaliya ku wajahaya duruufo kala duwan, qaarkood ayaa la kufsadaa, qaar ayaa la jir dilaa, qaar ayaa waxa ay ka shaqeeyaan shaqooyin ragga looga bartay, halka qaarka kalena ay tuugsadaan oo ay bannaanada laamiyada la fadhiyaan cadceedda oo ku dhacaysa iyo dhaxanta u dheer. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee aan laga shaqayn karin marka laga hadlayo xaaladaha isbiirsaday ee guud ahaan dalka ka jira.